hurdada waxa uu ka soo toosaa aroor hore subaxii xilligan oo kale. xasan cabdulqaadir ka hor inta uusan aadin iskuulka waxa uu muddo kooban ku bixiyaa koox bisado ah iyo nooc ka mid ah shimbiraha, kuwaas oo uu si mutadawacnimaha ugu quudiyo dusha sare ee hoyga uu kaga nool yahay Muqdisho. waxa uu ugu fikiraa bisadaha iyo shimbirahan sida noloshiisa oo kale, waxuuna maalinkii 2 gelin oo kala ah xilliyada quraacda iyo cashada uu siiyaa 2 bac oo hilib ah, qiimo ahaan ugu fadhida midiiba 12,000 oo shilinka Soomaaliga ah. dadaal badan ayuuna ku bixiyay xasan cabdulqaadir sidii hal hool ay ugu wada noolaan lahaayeen shimbiraha iyo bisadahan, iyadoo aan lisku xadgudbayn, taas oo ay naadir tahay inaad ku aragto Soomaaliya. hawsha waqti xakarkii abeeya waxaa jeclaysan in sameeyo markii oo kulaala iyo bisadaha iyo markii wax siinayo farxad ayaa dareemaa. subaxii galabtii waxaa siya daflaa, subaxii kulaala iyo tuka ayaa wax siya. hawshaas wada doonaa ma joojiyeen. quleeyaasha iyo mukulaalaha way isnacban yihiin. si wax siya markasta waa isjeclaysi. subaxdii hal mar ayaa wax ku siya iyo cashadiina hal mar ayaa isku siya. xasan waxa uu mararka qaar soo qaataa bisadaha ku dayacan wadooyinka iyo xaafadaha Muqdisho, wuxuuna isku xilqaamay howl ay naadir tahay inay ku fikiraan asaagiisa, ayna ka gaabiyeen dadka intooda kale in yar mooye. marka laga soo tago subaxii galabkii xilligan oo kale 10 jirkan aad arkaysaan waxa uu sidoo kale quudiyaa nooc kale oo kamid ah shimbiraha. xasan quudinta haadka iyo tukaha iyo qoolida iyo bisadaha. cabdulqaadir Subayr waa aabbaha dhalay wiilkan, waxa uuna ku dhiirigeliyaa wiilkiisa in uu joogteeyo hawshan oo uu soo bilaabay muddo 3 bil ka hor ah. bilowgii hore wuxuu quudin jiray maalmaha khamiista iyo jimcaha isagoo aruursanaya lacagaha loo siiyo bariigo kale. kadib markaan arkay in uu jeclaysanaya ama uu falkaada isaga uu sameynaya uu yahay fal aad muhiim u ah oo fiican oo qurux badan, waxaan jeclaysay inaan ku sii dhiirigeliyo. waxaan markaas aan bilaabay inaan siiyo lacag maalmeed ah daily cash, maalin kasta inuu lacag inta qaato oo intuusan iskuulka aadin ka hor xilligii hore uu tago uu soo iibsado adeegan hadda sababka uu siiyo ama uu ku quudiyo haadka iyo tukaha kale, iyo weliba uu ku daro uu ku beeriyo galbihii. runtii hadda arkayseen galbihii waxaa yimaada dhowr oo dafla ah ama loo yaqaan haad ama dafe uu markaasna uu ku quudiyo halkan. marka waxaan ku dhiiraday ana marka aan bilaabo inaan u sameeyo dhiirigelin. inkastoo Soomaaliya ay hadda ka mid tahay dunida aysan xayawaanadu ku haysan deganaan iyo xasilooni, xasan waxa uu tusaale u yahay in ay jiraan jiil soo koraya oo diyaar u ah in ay badbaadiyaan xayawaanada iyo shimbiraha. Maxamed Ibraahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho.